wasiirkii hore ee qorsheynta maamul goboleedka Jubbaland aadan oo xirsi haddana ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa eed kulul dusha uga tuuray golo iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gaaray asbuucii la soo dhaafay maamul degmooyinka gobolka Gado khaasatan degmada Luuq Doolow iyo Balad Xaawo. aadan oo xirsi ayaa ku eedeeyay madaxdii sarsare ee ka socotay maamul goboleedka Jubbaland ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Sayid Aadan in ay geeyeen degmooyinka Boor iyo Habaas kalena soo tageen lacago badan oo ay ku galeen intii ay joogeen meeshaas. aadan oo xirsi hadalkiisa ayaa u muuqdo in madaxdii aysan geynin dalka ay tageen iyo deegaamadii wax horumar ah balse ay geliyeen deyn iyo boor. hadalka ayaa waxa uu daaran yahay dhaliil weyn oo uu ka qabo tegitaankii ay tageen madaxdii ka socotay maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamuud Sayid Aadan. haddaba dhageysta sideed u aragtaa hadalka ka soo yeeray aadan oo xirsi oo ka tirsan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahaana wasiirkii qorsheynta maamul goboleedka Jubbaland oo ka tagay 2021 maamulkan markii ay isku dhaceen dowladii federaalka ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam maamulka uu hogaaminayo. ilaa weli aadan oo xirsi waxa uu ku jiraa golaha sare ee mucaaradka ka soo horjooda maamul goboleedka Jubbaland waxaanu ka tirsan yahay golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waa nin aqoon-yahan professor ah isla markaana hadaladiisa si aanan gabasho lahayn u sheego maanta oo ay tahay xilli la rajaynayo in ay Jubbaland israacday inuu ereygan soo qoro asagoo oo qayaxay waliba kuna eedeeyay inay dib ma ogi aysan dheef geynin gobolkii ay tageen madaxdii sare. wixii aragtida ku aadan nagala soo xiriir commentiga, wixii tala iyo tusaalaha ku bixi commentiga, gaarsii asxaabtaada iyo intii danaynaysa warkan inay arkaan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو مركزتا حقيقة TV.